waxgaradka culimaadudiinka cuqaasha dhalinyarada qurbo joogta iyo hooyooyinka beesha jidwaa qabsame ee degan maamulka magaalada Qabri Bayax ayaa kulan ay yeesheen oo kaga hadlayeen danaha beesha waxa sidoo kale ugu jawaabeen gudoomiyaha ururka SSI ee sii socod iska hadal ama iska mirqaan gaar ahaan unug hoosaadka bal iyo xoolo cirdoon ee dhawaan lagu aasaasay waqooyiga Ameerika maxamed badan mas'uuliyiinta sare ee ururkaas iyo seelashoodaba kuwaasoo nooca halgankooda uu yahay sii socod iska mirqaan iyo xoolo cirdoon jihooyinka iyo hadafka qorshahooduna uu yahay daaqada balka xoolaha loo dhigo waa sida ay iyagu maangaabka ay shirarka u hayaan u sheegeen waxaana si ballaaran u cambaareeyeen isla markaana ay ku tilmaameen dawarsato danaystayaal magafayaal iyo weliba xoolo cirdoon fadhiid ah shakhsiyaadka ku maxaabsanaya magaca beesha jidwaa qabsame ee qurbaha kula dhuumaalaysanaya shirarka sharci darrada ah ee lidiga ku ah dastuurka dalka iyo kan deegaanka Soomaalida Itoobiya ee lagaga soo horjeedo horumarka ka hana qaaday deegaanka nabadgelyada dhidibada loo aasay iyo nidaamka maamulka suuban ee lagu baraaray shirkan ayaa waxa hogaaminaya salaadiinta iyo suldaamada beesha jidwaa qabsame ee degan maamulka magaalada Qabri Bayax oo ay ka mid ahaayeen suldaan Cabdi suldaan Maxamed Bakeeri suldaan Badal Daahir Ismaaciil suldaan Maxamuud Cabdi Yuusuf oo ugu horreyn ka hadlay ujeedada kulankan